toddobadii bilood ugu dambeysay wax mushaar oo ay qaateen ma lahan. madaxweynuhu 7 Janaayo 2023 wuxuu baarlamaanka hortiisa ka sheegay inay maanta baxayaan mushaaraadkii iyo waliba raashinkii ciidamada, laakiin hadalkaas wuxuu ahaa mid feega oo aysan waxba ka jirin. ilaa iyo maalintii hadalkaas madaxweynuhu lahaa waxaa la sugayay mushaaraad, laakiin sama jirin wax mushaar oo soo baxay. ciidanka Puntland tusaale ahaan waxay gaaraan 20,000 oo askari. 20,000 oo askari kaba soo qaad si tusaale ahaan waxaa xaaslayaal 10,000 oo askari. 10,000 oo askarina tusaale ahaan waxaa u jooga askari kasta hal cunugaasna waa arday Puntlandeysa waxna ka barta gudaha Puntland, laakiin 7 bilood u dambeysay ardaygaas waxa muusan baranayn waxaana laga soo cayriyay waxbarashadii. si kale haddii aan u dhigno qoyska askarigii waxaa laga saaray gurigii, haddii aan laga saarin xitaa waxaa laga jaray korontadii iyo biyihii, xitaa haddii aan laga jaran waxaa laga jartay mid kamid ah. madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu iska dhiganayaa xalfado waaweyn iyo waliba maxaa la dhahaa dabaaldegyo fanaaniin qararac saas ay tahayna ciidamada waardiyeynaya waxay ahaayeen xalfadahaas iyo dabaaldegyadaas kuwa aan 7 bilood wax mushaar qaadan inaba la ekaad. sidoo kale shaqaalaha dowladda u shaqeynaya ayaguna waa la mid wax mushaar oo ay qaateen malahan 7 bilood. ma jiro miisaaniyad isxidhay oo Puntland leedahay sida dekedaha, aeroboorada iyo waliba mashaariic kale oo Puntland iska xidhay sida canshuur bixinta dadweynaha. intuba waxay u socdeen sidii loogu talagalay. kaliya waxa isbedelay maamulkii lacag bixinta. lacagta waa la qaadaa labana helo. annagu awalba haddii aan ciidamanahay ama shaqaalaha rayid waxaan qaadan jirnay mushaarka aan ka heli jirnay hantida laga qaado dadweynaha oo loo qaado qaab canshuureed. haddana ma helno annagu. xageebay aadaa? ciidamadu ma helaan, shaqaalaha rayidka ma helo. lacagtaas xageebay ku baxdaa? waa su'aal aan uga baahanahay jawaabtooda dadka ay qusayso. intaa waxa ku sii dheer askari kasta ama qof kasta oo shaqaalaha oo kamid ah dowladda wuxuu ku xiran yahay dukaankaasna wuxuu ka qaataa deyn si mushaarka markii uu qaato uu bixiyo lacag. 7 bilood ugu dambeysay ma lahan wax deyn celin oo ay bixiyeen ciidamadu ayna ku celiyeen dukaamadii iyo bakhaarada ay ku xirnaayeen caruuroodu. lacagahaas waxay hoos u dhac ku keenayaan dadkii ganacsatada ahaa oo ay ku xirnaayeen ciidamadu iyo waliba shaqaalaha dowladda. waxaana hoos u dhac taas ku keenaysa ku imaanaysa hoos u dhac dhaqaale ganacsatada haddii uu dhaqaaleed hoos u dhacana waxaa hoos u dhacaya dhaqaalaha Puntland oo dhan. bal ka waran dowladdii baa lacagta aruurinaysa kumana soo celinaysa shacab. dowladdii u shaqaysaa lacagtaas xagee aadaa? canshuurta laga qaado dadka rayidka ayaa la siiyaa. ma ciidamo qarsoon? ma shaqaale qarsoon? dowladdu xageebay lacagaha u didhaa? su'aalahaas oo dhan waxaan u baahanahay jawaabahooda. idinkana waxaan ka codsanayaa inaad fiidiyogan like garaysaan, share garaysaana si uu u gaaro dadka hantida dadweynaha sida foosha xun u caadaystay inay cunaan oo meelaha suudadka qaba. dadkaas waxaan u sheegayaa waxay rabaan inay ciidamada Puntland xirtaan wadooyinka, idaacaduhuna ay buunbuuniyaan, ay dhahaan markii ugu horreysay maahan oo ciidan Puntland ay wada xirtaan annaga sharaf darro ayay nagu tahay in ciidamada Puntland la arko ayagoo wadooyinka u xiran tahay. dowladuna mararka qaarkood waxaas dhahaysaa ma waxay raadinaysaa inay ciidamada wadooyinka xirtaan. waxaasoo dhan waxaa loo sameynaya anigu ma fahmin. waxaan u baahanahay jawaabahaas oo dhan inaan helo. wabillahi tawfiiq.